loo soo nooleeyo sharafta horumarka iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed si ay u soo noqoto dawladnimada si ay dib ugu bilaabato iftiinka ummadda Soomaaliyeed waxa uu leeyahay hal dariiq oo loo maro dariiq loo mari lahaa waa idinka dariiqaasi waxa uu yahay shaqaale rayid ah oo abaabulan oo u shaqeeya dalkooda ku shaqeeya daacadnimo aaminsan dalka iyagu inay leeyihiin u taagan inay u adeegaan bulshadooda sidaas daraaddeed waxaa muhiim ah wasiirada xukuumadda ra'iisul wasaaraha inaan ka soo baxno waajibkeennu waxa uu yahay inaad heshaan xuquuqdiina idinkana waxaa laydinka rabaa inaad ka soo baxdaan waajibkiina markii aan shaqada ra'iisul wasaarenimada bilaabay ayaan waxaan u sheegay shacabka Soomaaliyeed aniga iyo madaxweynuhu waxaan ku dadaali doonaa in qof walba oo u shaqeeya dawladda Soomaaliyeed uu helo mushaar laakiin qofka helaya mushaarka inuu yahay qof u shaqeeya dawladda Soomaaliyeed marka haddii aan ka soo baxnay qaybtii hore idinkana waxaa la idinka rabaa in shaqada waqtigeeda lagu yimaado in dadka Soomaaliyeed loo adeego inaad idinku xaqiijisaan inaadan aqbalinina in la siiyo mushaar qof aan dawladda u shaqeynin musuqmaasuqa macnaheedu ma aha adigu musuqmaasuq inaad gasho musuqmaasuqa macnihiisu waxa weeyaan inaad fiirsato haddii aad fiirsato waxay la mid tahay adoo adigu musuqmaasuqa galay si marka aan u ilaashano dawladnimada oo aad idinku meel dheer ka keenteen dawladnimadan maanta aad ku faanaysaan oo aad isu soo abaabusheen oo aad halkan u timaadeen rag iyo dumar dawladnimadii aanay macquulka ahayn in laga hadlo markii aad shaqada bilowdeen dawladnimadii ay diideen dad Soomaaliyeed in laga shaqaaleeyo dawladnimada maanta idinku aad ku faanaysaan si aad u ilaalisaan waxaad u baahan tihiin inta yarood haysanno inaan ku faraaday waa inaadan aniga iga aqbalinina inaan idinka hagardaaciyo dawladnimadiina laakiin idinkuna waa inaadan iska aqbalinina waa inaad ogaataan walaalihiina idinka yaryar oo aad guryaha uga timaadeen inay idinka rabaan inaad uga tagtaan wasaaradda dhisan inay xaq idinkugu leeyihiin inaad gacanta u gelisaan Soomaaliyeedan ka duwan in mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed ay leedahay ay idinka tahay